markaa kadib sayid ciise wuxuu arkay canshuurqaade la yidhaahdo matayos laawi oo fadhiya iridda canshuurta lagu aruuriyo. xertayda naqo. sayid ciisena wuxuu aaday taag sare xaggeeda. habeenkaas oo dhan wuu baryootamayay. oo markii waagi uu baryey wuxuu ka doortay 12 xeer, wuxuuna ka dhigay una magacaabay rasuullo. kuwaasi waxay ahaayeen simoon oo lagu magac daray butros, andiros oo butros walaalkiis ah, yacquub, yooxana, filibos, bartolomeos, matayos, Thomas, Yacquub ina Alfayos, Simoon oo la dhihi jiray Wadani, Yudas ina Yacquub, iyo Yudas ina Iskariot oo ugu dambayntii sayid Ciise gacan geliyey.